maalmihii la soo dhaafay waxaa socday doodo iyo baaritaanno ku saabsan heerkay gaarsiisan tahay wada shaqaynta muddada fog ka dhexaysay kooxda al-shabaab iyo laamaha amniga gobolka banaadir gaar ahaan taliyaasha degmooyinka gobolka banaadir taliyaasha qaybaha iyo saraakiisha xukuma baraha koontarool ee yaalla magaalada muqdisho dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ku dhaqaaqday dagaalka al-shabaab ayaa meel dhow laga tusay isku tolan muddo soo jiray iyo gacmo al-shabaab ka caawiya inay qaraxyada dhaafiyaan baraha koontarool ee yaalla caasimadda baaritaannada socda oo wararka qaar sheegayaan inay xogo badan dhaleen ayaa la eegayaa sida ay dowladdu jawaabtooda u maarayso laakiin hadda waxaa kaloo soo baxay warar dheeri ah oo la xidhiira in saraakiisha qaar si aanay ogayn iyaguba inay ugu adeegayaan al-shabaab xariggan waxaa daraf ka haya qaar ka mid ah ganacsatada magaalada muqdisho dhowr iyo 10kii sano ee al-shabaab jireen waxay abuureen ganacsiyo iyo ganacsato markii la sheego waa ganacsato si caadi u taagan laakiin hantida ay ku shaqeeyaan waxaa leh al-shabaab ayay yiraahdeen ila sirdoon xubnahan kaliya kuma shaqeeyaan lacagta kooxda ee waxay sidoo kale gudbiyaan baabuurta qaraxyada ilaha aan la hadalnay waxaan weydiinay sida ay baabuurta qaraxyada sida u gudbiyaan ganacsatadaasi la shaqaysa al-shabaab ganacsatada ay kooxdu abuurtay ama ka tirsan mabda ahaan waxay wada shaqayn dhow la samaystaan taliyaasha degmooyinka gobolka banaadir ee booliiska iyo nabad sugidda ama taliyaasha jagboontiyada wada shaqayntan oo dhaqaalo wadata waxaa taliyaasha uu ganacsaduhu kala heshiiyaa inay u soo daayaan baabuurta xamuulka ah ee adeegyada u sida si aan loogu dhibin waddooyinka isbarashadaas iyo wada shaqayntaas dhaqaaluhu saldhigga u yahay waxay degdeg u dhashaa in aan la celin lana baarin gaari walba oo u socda ganacsadahaas markii uu gaarigu u soo dhowaado barta koontaroolku yaallo wuxuu ganacsaduhu wacayaa taliyaha uu heshiiska kula jiro wuxuu u sheegayaa nuuca gaariga taargadiisa iyo inuu isaga u socdo wuxuuna dalbanayaa in loo soo gudbiyo taliyaha qaybtaas xukuma wuxuu amrayaa qofka haysta barta koontaroolka inuu gaarigaasi sii daayo sidaas ayayna baabuurtu ku soo gudubtaa ayuu yidhi sargaalka xogtaa nala wadaagay askarigu ma baari karo gaari taliyihiisu amar ku siiyey inuu soo daayo taliyaha amarkaasi bixinaya toos uguma xirna kooxda al-shabaab ee ganacsadaha lacagta siiyey ayay soo dhex mareen ayuu hadalkiisa ku daray qofka xogtaa nala wadaagay xaqiijin dheeri ah oo arrintan ku saabsan oo aan raadinnay waxaan kula hadalnay qof shaqaalaha dowladda ka tirsan oo dhacdo noocaana la kulmay innagoo dhowr baabuur ah oo kaarar dowladeed wadanna ayaana loo diiday waddada ragga qaar kaarar madaxtooyada ah ayay wateen kadibna waxaan la hadalnay nin ganacsato ah si uu noo sii daayo wuxuuna degdeg ula hadlay taliyihii aaggaas xukumaayey wuxuuna ku yidhi baabuurtaas aniga ayay ii socdaan ee soo daa sidaas ayaana ku soo gudubnay mararka qaar fursaddan waa ka faa'iidaysan karaan argagixisada iyo ganacsatada la shaqaysa ayuu yidhi xubintaas aan la hadalnay si aan u hubinno wada shaqayntan halista ah ee aan lagu baraarugsanayn iyadoo ay jiraan ganacsato si caadi ula macaamisha ciidanka dowladda oo gaadiidkooda xamuulkaa loo gudbiyo oo aan al-shabaab gacansaar la lahayn haddana sida iska cad kooxda al-shabaab fursadaha noocan ah si degdega ayay ugu soo dhex dhuntaan dowladda soomaaliya iyo hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka waxaa hor taalla siday u burburin lahayd isku xidhka al-shabaab iyo qaar ka mida laamaha amniga ama ganacsatada lagu tuhmaayo inay kooxda si hoose ula shaqeeyaan ee gaadiidka u soo gudbiya iyadoo dhinaca kale la ilaalinayo ganacsatada nadiifka ah ee aan shaqadan kaalinta ku lahayn maxay kula taadiga